أنت وحن كقيب قلي دود خبراء كلا كقيب قلين مسؤولين كلا وكمدي هاي وكيل كجمعية القرومات كلا حيث الصومالي وقاب بالسن جيمس وان والله جه اللي الصومالي يكالنت هذا جزء أفريقيا يو فرقلنت دلالة قاركود لقيا بين الصومالي وكسمية وحنا عديني إن قبل كجزء أفريقيا وصعده soo dhawaasho iyo iskaashi hoogan dhan dhaqaale dhan siyaasadeed iyo dhan amniba oo ummadda Soomaaliyeedna ay goosatay inay iska caabiso faragelin dibadda uga yimaada in horumar badan fiican laga sameeyay waxa la yiraahdaa iskaashiga dalalka geeska Afrika mandaqadayada ama gobolka iyaguna uu mustaqbal fiican leeyahay markay noqoto deganaanshaha siyaasadeed iyo horumar dhaqaale laga gaaro oo iskaashiga la maagan yahay inuu dhex maro kaasoo ay horkacayaan siyaasiyiinta iyo madaxda dalalka gaar ahaan madaxda cusub regionka gobolka ku soo korodhay sida madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha Suudaan Abdalla Hamdok iyo madaxdii horeeto oo xigmadda lahayd sida madaxweynaha Djibouti madaxweynaha Uganda madaxweynaha Kenya oo kulligood ka shaqeynaya soo dhawaanshaha geeska Afrika iyo in dadka geeska Afrika ku nool ay noqdaan kuwa adduunka ummadaha kale ka jira la tartama waxa laga hadlay arinta debt relief-ka ama deyn cafinta oo wakiilka xogayaha guud uu ka hadlay arintaas uu rajo ka muujiyay in deymaha laga cafiyo Soomaaliya arintaas maxaa laga yeelay arintaas wuxuu ka hadlay horumarka Soomaaliya ka gaartay dadaalka ugu jirto hagaajinta dhaqaalaheeda iyo rajada weyn oo laga qabo in Soomaaliya deynka laga cafiyo